السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي إن المرة والبقوم عدنا قنوه إلهي بقى مهدس كله وهالك النسوق جارسيي شقادة دير لقبتي وكسب بلعبتي مركي لا يدورتي لبدي يكون يتضوي تونكا ما أنت أنا جبتها هاي حوش عن هالك النسوق نمد وآهنا نسيحه شرعي كان لدجالك مسخمات سوقا يو إنك كسوق يبكشين إذا كوا عفات قبه الله أسكال ما هداس وحنو ما هدعلنا يا قولها وزير هذا ورنتي جهدي بدن قليي وكسو شقيي ورنتي وقت بدن وآد فر بدن قليي إيوه قوليه وزير هذا كهري دولدي هراء يهذا نفط كذا ومال وحسوق جارسيسي وكسو شقيسي إن كسو سن فرصة وهلين إلا الله بالكان يسوق جارته aad iyo aad yaan runtii qof walba oo wax galiyay waqti iyo effort galiyay yaan uga mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa xildhibaanada labada aqal oo runtii iyaga naftigooda waqti aad far badan galiyay oo wax badan ka bedelay oo hadda sharcigan haysano meesha uu yahay gaarsiiyay waxaan u mahadcelinayaa guddiga dhaqaalaha ee dalka waxaan ku raahdaa expertise-ka ay siiyeen ay kala shaqeeyeen inuu sharciga noqdo sharci la jaan qaada shuruucda la dagaalka musuqmaasuqa ee caalamka aad iyo aad yaan iyagana ugu mahadcelinayaa maanta waa maalin taariikhi ah oo runtii qof walba halkan fadhiya uu nasiib u yeeshay inuu ka soo qayb galo aniguna inaan saxiixo bacdamaan ka shaqaynaynay muddo 2 sano iyo xoogaa ah maantana uu soo gaaray inaan helno tuulkii ama qalabkii qofkii moralkiisa celin waaya uu sharciga celiyo sida uu noo sheegay Sheekh Baaruud diinteenu waana faraysaa in aan ka fogaano wax alla wixii qaloocan wax alla wixii diinteenu diidan tahay musuqmaasuqa ma aha kaliya lacag la xado musuqmaasuqa waa qofka positionka uu joogo si xun ugu takrifala oo personal level ah isagoon ilaahay ka baqaynin isagoo mas'uuliyadda loo dhiibay aan tixgelinaynin waa xaqiiqa inaan annaga aan kaga jirno meel hoose weliba waa la duduubay oo 10 ugu hooseysaa la yiri laakiin in la caddeeyaa fiican si aan meeshaan joognaan u ogaano nambarka ugu hooseeyaana 194 dal yaa adduunka jira waxaan nahay 194 wasiirka dalka uu tagay oo uu sheegay oo ah Denmarkna waa number 1 waana dal Kristaan ah annaguna waxaan nahay dal muslima oo dhaqankii islaamka laga rabay inuu sameeyo oo ah wax alla wixii xaaraan ah inaan ka tagno waliba amaanadu kuma jirto oo waxa cad qofka inuusan marin siraadul mustaqiim xitaa inuusan marin dacwadii xitaa inuusan tagayn haddii lagu leeyahay دايما ما أها معناها قف كليا محن كنا هذا دين كقوله يا ما هي وحدين تان كقوله قف كسته أو نول يا قف كسته أو نولان دونه مركا ما جاري كرت قفل بين عفس ويد استمرك أنا قلنا هنتي إن بعدما مدة دير عن دب كجرني مركا قف كليا هذا وحاني حرام ويه وحا حنون بدن دب كمركا سو كجرو marka wuxuu kala doortay markaas inuu gaajada ka baxo iyo maxaan ku raahdaa dalkiisa inuu xumaado oo uu noqdo dalka ugu xun ugu musuqmaasuq badan iyo aakhirana inay u dambayso oo uusan janno gelin inta badan waxaa la yiraahdaa dadka musuqmaasuqa u faradhuuban ama u badan waa dadka dawladda u shaqeeya xaqiiqo ma aha waxaa ku jira ganacsatada oo haddii ay ahayd inay canshuur bixiyaan canshuurtooda qariya oo aan sheegin wixii waxbaa lagu ballamay waxaa lagu ballamay intaasoo percent inaad bixiso hadduu kala qariyo waa musuqmaasuq markuu kala qarinayana musuqmaasuqu dawladdu ku darayaa culays kala saaraya maxaa yeelay ninkii qaadayay yaa laga yaabaa inuu laaluusho marka wuxuu ka yahay qaybta ugu muhiimsan yuu ka yahay qofka ganacsatada ah haddaan dhaqaale la helin amni ma imaan karo waxay taabanaysaa waxbarashadii waxay taabanaysaa biyihii la cabaayay
waxay taabanaysaa horumarkii kale, waxay taabanaysaa caafimaadkii, wax walbay taabanaysaa. marka meesha ay wax ka bilaabanayaan waa qofka canshuur bixiyaha ah. meesha adduunka hore u maray oo la yiraahdo adduunka koowaad ama adduunka developed countries-ka ay nooga fiican yihiin waxay tahay qofka shacabka ah wuxuu leeyahay mas'uuliyad, social responsibility yuu leeyahay. mas-uuliyaddaas waxaa ugu horeysa dowladdan adigaa iska leh, adigaa ku nool, waxay ilaalisaa amnigaagay ilaalisaa, waxay ku siisaa caafimaad, waxay ku siisaa xasilooni, way ku difaacdaa oo cadow dibadda kaaga yimaadeen kaa difaacdaa, sharafkaagii iyo qabkaagii yay gacanta ku haysaa. marka maxaan ku darsadaa marka anigu haddaan ahay shaksi muwaadin ah, maxaan dowlad ku darsadaa? dowlad waa dhaleecayn kartaa, waa sax, laakiin waxaa ka sii qurxoon inaad dhaleecayso markaad tiraahdo intaasaan ku darsaday, iskuul ma dhisna, jidkii ma hagaagsana, bulaacaddii qaadaysa wasakhda ma dhisna, habeenkii waa mugdi, iftiin ma laha, nabadgelyadeeda ma fiicna. laakiin marka hore waa qofka muwaadinka inuu dhiibo. waxay gaaraan dadkaas hadda aan la tartamayno, rabin aan la tartanno, haddii canshuurta ninka dukaanka jooga uu ka iloobo inay dacweeyaan, ay booliis u tagaan ama authority u tagaan, yidhaahdaan qofkan maxaan ku idhaahdaa igama qaadin canshuurtii dukaanlaha ah, shaah baan ka cabbay, canshuurtii igama qaadin, warqaddaas rasiidka ah iyo ku cadda. levelkaas markuu soo gaaro dadka, marka mujtamac ay soo gaaraan, dowladdooduna waa u ekaataa iyadana. marka waxa weeye waa collective responsibility, waa wax kulligeen aan wada leenahay inaan wada ilaalino. haddaan doonayno dalka inuu kobco, haddaan doonayno dalka inuu horumaro, haddaan doonayno dalku inuu la tartamo caalamka intiisa kale. markaasna waa ku qabsan kartaa ninka mas-uulka ah hadduu ku takrifalo, haddii ganacsadihii uu diido lacagtii laaluushka inuu dhiibo, haddii gabadhii yaanyada gadaysa ay dhiibto canshuurteeda, waa lagu qabsan karaa. marka ninkii authority-ga ahaa, dowladda ahaa, haddii uu wixii musuqmaasuqo waa lagu qabsan karaa. marka dembiga aakhiro iyo dembiga adduun waa loo siman yahay, cid gaara ugu dhici mayso. waa xaqiiq. dowladda waxaa laga rabaa inay keento xasilooni siyaasadeed, inay keento. dowladda waxaa laga rabaa inay keento dowlad wanaag. xasilooni siyaasadeed macnaheedu waxay tahay dowladdu inaysan isqabqabsan, inaysan isku qabqabsan wax shaksi ah, inaysan isku qabqabsan, inay fiiriso waxa loo idmaday iyo mas-uuliyadda ay dalka u hayso iyo dadka u hayso, inay heshiis yihiin dowladda dhexdeeda oo si dahsoon ama maxaan ku raahdaa qarsoon wixii looga wada hadlo, waxa khaldana meeshaas lagu qabto, iyadoo la kaashanayo dadka khubarada ah iyo qof walba oo caqligu saaxiib u yahay. in sabqabsi iyo isbeddel iyo xasilooni siyaasad darro aysan jirin, taasaa laga rabaa dowladda. waxaa kaloo laga rabaa dowlad wanaag. dowlad wanaaggu waxaa uga horeeya cadaaladda. haddii cadaaladdu ay halaysan tahay ama dhibaatadu ay ka socoto, booliisku ma shaqayn karo, hay-adihii amniga ma shaqayn karaan. maxaa yeele waxay soo qabtaan meeshii la keenayay. haddii aysan sax ahayn oo ay qayb ka yihiin dhibka, booliiska wuxuu leeyahay marka adigana danahaaga ka qabsan marka, iyo qolooyinka CID-da iyo ninka jidka taagan oo canshuurta aruurinaya. marka dowlad wanaaggu waxay tahay wax dowladda laga rabo. waanu ku khasbannahay inaan hagaajino level kasta. hal mar ma wada sixi karno wax walba, maxaa yeele dalku muddo dheer iyo burbursanaa. dhaqan yaa develop garoobay, dhaqan xun yaa develop garoobay, oo qofka hadduusan waxba hadin, qofka hadduusan eex samaynin, inuu yahay qof doqon ah oo aan wanaagsanayn, ama qabiilkiisana u wanaagsanayn, ama reerkiisa iyo carruurtiisa aan u wanaagsanayn, yaa develop garoobay. marka in la beddelaa la rabaa dhaqankaas, oo dhaqan saalixa oo wanaagsan oo islaamnimada ku jirto, caalamkana aan kaga dayanno kuwa naga horeeya siday u dhaqmaan, oo la bedelo dadka si u fakaraan. taasna runtii waxa uga horeeya inay culummadu ay ka shaqeeyaan oo doorkaas ay qaataan, ay ku celceliyaan qofku inuu moralkiisa celiyo, moralkiisa inuu celiyo. tan iyo dowladduna inay ka shaqayso
mechanism ama system ay abuurto qofka ilaahay ka baqi waaya in lagu qabto oo 10 sano 20 sano maxaan ku raahdaa lagu xukumo marka annaga muhiimad weyn ayay noo leedahay runtii la dagaalanka musuqmaasuqa maxaa yeelay waxaan ognahay waxa dib noo dhigay hadda ayaan dhaweyd waxaan tagnay aniga iyo wafdi ila socda Japan yaan tagnay TICAD yaan tagnay waxay casubeen Afrikaanka oo dhan iyo casubeen kulligood Afrikaankaas meesha tagay kulli dhaqaale wada raadinaya nin aan dhaqaale raadinayn ma jiro nin walba wuxuu raadinayaa mashruuc uu Japanka siiyo Japankana annaga dal ahaan 2 jeer ka weyn dad ahaan waa naga badan yihiin waa 100 iyo xoogaa milyan oo qof laakiin ma haystaan dhulkaas yarka ay haystaan ma laha natural resource ma laha laakiin ilaahay wuxuu ku manaystay dad nidaamsan oo kow musuqmaasuqa iyo nidaam xumada ka fog waxay keentay marka Afrikadii ilaahay wax walba ku manaystay oo bilyan gaaraya oo dhulka ugu khayraadka badan adduunka ah aqoonna aan ku yareen aan loo kala harin in la aado halkaas qof walba uu yiraahdo mashruucana wataa halii maalgeliyo anigu kullee shakhsi aan ahay wallahi waa qajilay waa xishooday waxaan si u tagay Afrikaanka ka harin haddaan isku toosnaan lahayn ma tageen xaqiiqatan iyagaan oran lahayn noo imaada maxaan wada qabsadaa idinku ma haysataan natural resources kalluun intaas leeg ma haysataan macaadin ma lihidin xoolo ma lihidin geel maxaan ku raahdaa beer ma lihidin oil and gas ma lihidin maxaa halkan aan ka wada qabsanaa idinkana maxaa xaggaas aan ka qabsan karnaa yaan oran lahaa laakiin haddii la yiri Soomaaliya meesha ugu hooseysay kaga taala dalkeenana muddo uu ka cilaayay waa khasbiyan in magaceena uu meesha ka muuqdo marka xaqiiqatan dadkeenu dad fiican weeye dalkeenu waa dal fiican haddaan ilaahay u noqono waa xaqiiqo weeye haddaan ilaahay u noqono oo ilaahay wuxuu na faray aan yeelno problem dadna ma haysto dad isdiidan manihi laakiin waxaa naga maqan inaan wixii diintuna fartay aan qaadanno adduunkan dadka naga roon waxay inooga roon yihiin ama nooga fiican yihiin aan uga dayanno hadalkayga waxaan kusoo gabagabeynayaa waa farqiga u dhexeeya adduunka horumaray iyo adduunka dib u dhacay oo annaga waan qayb ka nahay adduunka horumaray waa iska ilaaliyeen musuqmaasuq qof walba wuxuu u shaqeeyaa danta guud yuu u shaqeeyaa markii dalkan uu hagaago oo dhaqaalihiisu uu meel sare gaaro oo amnigiisu soo noqdo qof walba wuxuu ugu noolaan karaa si wanaagsan yuu ugu noolaan karaa laakiin hadda waxaa nagu jirto qof walbaba halkana lugha kugu jirto dibaddana lugha kugu jirto halkana ka shaqayso carruurtaadana dibadda meel kale ha kuu joogaan sax maaha taas sax maaha marka dalkan dal wanaagsan weeye dhinac walba u wanaagsan oo ilaahay nagu manaystay ilaahayna siiyey inaan iimaansanno kaliya loo baahan yahay annagana inaan is iimaansanno musuqmaasuqa waa cudur bini aadanka cudurku ugu xun waxaa la yidhahdaa waa kansarka kansarka waa ka daran yahay maxaa yeele kansarka hal qof kaliyu dilaa laakiin musuqmaasuqa society oo dhan yuu dilaa maydan la tahay haddaan toosnaan lahayn nabadgelyadu inaysaan ahaan lahayn haddii dhaqaale qof walbu bixin lahaa oo nidaamka dawliga ah uu noo hagaagsanaan lahaa oo ciidankeena mushaar fiican aan siin lahayn iyo qalab fiican ma u malaynaysaan amnigeenu meeshan taagnaan lahaa ma u malaynaysaan in dowlado shisheeye ayna kaalmeyn lahaayeen ama ciidamo noo soo diri lahaayeen anu waxaan qabaa annagaa u diri lahayn oo caawin lahayn marka ilaahay naga sarreey gacantii sarreysa ilaahay naga dhigo waxaan insha allah hadduu ilaah yidhaahdo aan magacaabi doonnaa oo wasiirku ka shaqayn doonaa guddigii musuqmaasuqa waxaan rajaynaynaa inay noqdaan dadka ugu integrity-ga fiican ummadda oo lagu yaqaano dhaqan fiican diin fiican iyo dadnimo fiican lagu yaqaano wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu